SSB maqashayaaba waxa kugu soo dhacaya ganacsadaha tacabka nafuurnimada iyo dadaalka badan geliyay difaaca dalkiisa dadkiisa iyo deegaankiisa kanaan sheegayno ee ka hadlayno waa aadan sahal cali oo ku magac dheer biinde dhammaan ciidamada SSB meel kastoo ay joogaan maanta ina sahal cali biinde kugu wareejiyay mudane madaxweyne antariska waxaa aniga ii ah inaynu dalkeenna iyo dadkeenna difaacano antariskaygu aniga waa kaa dowladnimadeennana inaynu adeecno haddaan dowladnimo jirin adar jiri mayno dowladnimada nolosha weeye bini'aadanka dowladnimadu nolosha ifka weeye innaguna waxa weeye dowladnimadaynu taageeraynaa ninkii inugu nacaya ninkii inugu jeclaanaya cidna waxba inagama gelin innagu dowladnimadeenna waxaynu ah waxa weeye hal nin qudhaa dhulbahante 10 casho u sujuudaya baa kula xamar ka soo duulayay innagu midii sano qaranaba waynu haysanaaye weligeen baynaynu u sujuudnayna xaq u leenahay adeer waayo waxay u ciyaarayaan baynu u ciyaaraynaa madaxaynu ku qaadanaynaa baan idinku yidhi ganacsada biinde waa mas'uul bulshada Soomaaliland aad u jeceshahay kadib markuu tacab badan gashtay isla markaasina ka xanuunsaday ka hor yimid la diriray oo xoolo iyo xiniyaba duldhigay tab iyo xeelad walba oo lagaga guulaysan karo cadowga Soomaaliland duulaanka qaawan ku soo qaada xalaale wixii saanad idinka dhiman ayaa waxa weeye meel la saara way idin imanaysaa wixii idinka dhiman way idin imanayaan saanadaasi hadday nabad noqotona nabadaynu ku ilaashanaynaa hadday colaad noqotona waxbaynu iskaga celinaynaa si nool biinde waxa uu ku suntan yahay samaynta ciidanka SSB iyo sidoo kale garab istaagga ciidanka qaranka Soomaaliland waa ganacsadaha keliya ee aan hal dharaar hurdo dhinaca dhigin iyadoo ay dhulka Soomaaliland ka dhacayso xabadda cadowga duulaanada soo qaada anigu geed walba waan idinla seexday xabaddaan idinla riday meel walba waan waxa weeye waynu wada joognay rag badan baa xasarad badan baa iska jirta antariska waxaa aniga ii ah inaynu dalkeenna iyo dadkeenna difaacano antariskaygu aniga waa kaa dowladnimadeennana inaynu adeecno haddaan dowladnimo jirin adar jiri mayno waxaan laga waayin isaga faramaha hore ee difaaca taasi oo ka dhigtay ganacsadaha keliya ee leh dhiigga kuwii u soo halgamay Soomaaliland isla markaasina dalkan u soo dhintay sidoo kale waxaan kaga mahadnaqayaa abaabulka ciidamada u geystayna aad baan uga mahadnaqaynaa runtii waxaan ku dayasho mudan weeye tijaarta kale runtii deegaan ka soo jeeda waxaan ku boorinayaa inay ku daydaan biinde inaanay xooluhu yeelan iyagu xoolaha yeeshaan bini'aadmiga ilaahay abuurtay waxaa loo abuuray oo ifka loo keenay inuu ku noolaado sida libaaxa u noolaado waxa weeye halkan ganacsada biinde aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa weeye wax allaale wax ganacsado oo kale oo aanu maanta haynaa ma jirto wax naftiisii iyo maalkiisii iyo dadkiisiiba huray waxaan u arkaa waxa weeye ganacsada biinde war ganacsadada kale ma wuxuun bay dhaqanaysaa halkay wax ku dhaqanayaan meeshay wax ku dhaqanayaane wax ku ogyihin waa xaggee aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ganacsada biinde waa hogaamiye Soomaaliland teeda aan kala qoqobin kala qaybin balse mar walba jecel in meel looga soo wada jeesto cadowga Soomaaliland isla markaasina laga shaqeeyo difaaca iyo horumarka dalkan dhiigga badan u daatay iyo dadka ku dul nool marka ana iskii laawina wareeyo siyaasha ayaan ku soo dhuuman urdada dhexdeeda deynay ciidan kale waan si kasta ha ahaatee ganacsada aadan sahal cali biinde waa tusaale nool oo lagu tilmaamsan karo hogaamiye lagu badhaaray isla markaana ka caagan oo aan lagu xaman astaamaha hogaamiyayaasha lagu jabo dad isku wad difaac dan guud oo loo guntado iyo garab istaagga gaadhista yoolka fog ee mustaqbalka Soomaaliland ay leedahay burista hantida oo aan qaranka Soomaaliland kun laga hakranaynin ka shaqaynta marxaladaha gobollada bariga Soomaaliland iyo sidoo kale guud ahaanba Soomaaliland
waa kuwo ka mid ah astaamaha ka dhiga ganacsada aadan sahal cali biindhe mid xurmad iyo xishmad gaar ah u muujiyaan bulshada Somaliland dal iyo dabadba wariye maxamed suute iyo sidoo kale warsame kaafi cabdirashiid inuu hago maatadiis